الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد dadka Soomaaliyeed meel kasto dunida kaga sugantii ba assalaamu calaykum war markan idinka daba qayliyo aan idin leeyahay heshiiya war jooga war qayrkiinu naaxa war cadawga iska celiya war sawaaxiliga badina qaadanaya ka naaxa markan idin leeyahay macnaheedu ma aha in aanu jecelahay midnimo Soomaaliyeed iyo Somaliland hay isugu soo noqdaan xaaraan bakat takaliya aniga haysa wax weeye dhagta hadii la jaro daloolka hada Soomaalida geeska Afrika oo dhan ku nool ayaan jecelahay inay naaxday naruuraysato idinkana waxbaaba inaga dhaxeeyo aqoonsi iyo dana inagu kala maqan inaad cagaha dhigataan oo inaga miir qabnaan isu nimaadna jecelahay mid kale cadawga geeska Afrika inaan iska weheshino laba dal oo jaaro isku macaan oo walaala ah oo dhaqan iyo dhiigba ka dhaxeeyo horta inaynu noqonaan anigu doonay tina markaad idinku naaxi weydeen ee waliba aad hagaagi weydeen horta god dheer bay ku sii dhacaysa mid kale marka doonaysaan ummadina sharci ku dhaqdaan horta sharci baa lagu dhaqmaa markaas aad umada kalena sharciga ugu yeeri karta warheede xildhibaanadan aad doonaysaan gobolkii gado intaad ka afduubtaan ceel qaalo oo Kenya ha lagu soo doortay kuwaasaan ogol aad leedihiin oo halkaas lagu soo doortay idinku gudoomiyaha baarlamaanka waxaad ka timi Puntland maxaad cadaadooga tagi weyday war waaba yaabay maxaa saadiga ceel qaale lagu soo dooran waay nin weyn adigoo boqol jira ayaad umadii sharci darra ku jujuubaysa 16 kursi ee gobolka gado laga soo doortay baa sharci ah hada sharci garanayso hadii kalena idinka gantaalka idinku dhacay kaba soo noqon maysa habeenkii xalay ah hoteelkii aad wax ku dhaarinayseen dhinaca kale waxa ku shiray afar maamul goboleed oo gobolka Banaadir iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo waliba galmudug oo xildhibaanadoodii ku dhaariyeen xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Gadiye Garbahaarey kuwaas xalaal bay yiraahdeen halkay miyaydun dilaacay durba doorashadii waa lagu kala baxay iyadoo la qabanba waa lagu kala baxo cidii miiska ka qaadanaysa way muuqataa ama baqtiye ama daaya war waxaan idinka daba qaylinay waa Soomaalinimo qol qabadkuma biyo cabto aniguna hadda Soomaaliland ay halka iyagu maqnaa aniga xildhibaan ha igu jujuubina waayo anagu xildhibaananu leenahay waayo oo halka noo jooga oo anaga hadda dhib iyo dhaaf banala qaba oo mushaharkooda la cunna kuwa halka u shaqo tagay ee wariba sharci darra inta waxa xeer ku qoraya 17 September nin walba in laba magaalo lagu soo doorto okay labada magaalo Soomaaliland lagu doortay laga ogolaa waa kuwe afasiyooni baad ku xiraysan waa shakhsiyaad idinku meeshaad ku xiraysatay Soomaaliland garanay war wallahi Soomaaliland waxaan kula hadla garan maayo wax alla waxaan kula hadlo anigu garan maayo hadalka muu iga dhamaaday miya la oran jiray hadalkiina malaha uu iga dhamaaday laakiin aniga qofkii tan cari ka hayso halka hooyo ka joogti aniga marka ayda qoraysa waa gooradi daawatay maxaad ii daawan bade 320 milyan oo Soomaali u baalkana dhex jibaaxaya gaal iyo islaan cadaan iyo midow uu dhex jibaaxayaaye dameer eed waraabe dacwo waxaas anaga hadafkayaga ma aamusiyaan hana daawan laguma daawado cidibta gooday hadafkayagana aamusin kari mays halka ka jooji ciladaha iyo dhaqanka adigu taqaanay halka ka jooji naago iyo rag xubnoodii taranka inta jaraan si kala isu isticmaalay baa baraha bulshada saa u taagan markaas hambal iyo qortaan dadkiina idinka hadli kari maayaan annaga nalama aamusin kara walla tallaayo hadiyo jiibaan waa ma doorasho wallahi doorasho ay wada ciyaarta عمل